ciidamada booliska Somaliland xafiiska xeeraalinta iyo maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa soo bandhigay 886 litir iyo bar khamri ah oo ay sheegeen in lagu soo qabtay 4 ruux oo kala ah 2 haween iyo 2 rag ah. ugu horeyn waxaa halkaasi warbaahinta la hadlay isla markaasna ka warbixiyay cadadka khamrigaas Cabdi Cali Xayd taliyaha qaybta aaga bari ee ciidanka booliska ee Somaliland iyo Faysal Xiis oo ah taliyaha ciidanka dambi baadhista. waxaan maanta halkan u taaganahay ciidanka booliska maxkamadaha xeer ilaalinta inaanu maanta halkan ku burburino maandooriyo tirsigiisu dhan yahay 886 iyo nus litir khamriga loo yaqaan noociisa dry gin-ka kaasoo inooga soo gudbay dalka Ethiopia. khamrigaasi waxa lagu sameeyay mataqaanaa dhalan rog waxa laga sameeyay qaarkood waxa laga dhigay maawsixa laga soo dhigay maawsixii baa la soo sameeyay bacdii baa lagu soo sameeyay furkii baa lagu soo sameeyay isagoo loo soo ekeysiyay in ay yihiin biyihii maawsixay dadku cabbi jiray. khamrigaasi waxa kaloo jira jirikaamo lagu soo guray iyo qaar quruurada ku jira oo mataqaanaa saddexdaan nooc ayuu isugu jiraan maandooriyahani waxaana la doonayay ummadda islaamka ee jamhuuriyadda Somaliland in lagu khaldo lagu baabiyo. waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digaynaa in ay mataqaanaa ka waantoobaan ka ganacsiga khamriga maadaama aynu nahay dad islaam ah. anagoo fulinayna amarka taliyaha ciidanka booliska Sariir Guuto Maxamed Aadan Saqdi wuxuu awaamir adag ka soo saaray in si adag loola dagaalamo mukhaadaraadka haddii noqoto khamri haddii noqoto xashiishad wuxuu bixiyay amar afa wuxuu bixiyay mid qoraal ah oo wuxuu ku faafiyay dhammaan gobolada dalka oo dhan intoo la kaliya maaha haddaad eegto Wajaale haddaad eegto Gabiley Laascaanood Burco booliisku waxay qabteen mukhaadaraadkaas oo kale waliba taliyaha waxa uu dheer ciidanka booliiska inuu abaalmarin siinayo hadday noqoto dadweyne iyo hadday noqoto ciidan booliisba oo qaar badan buu siiyay kuwa khamriga soo qabtay abaalmarin oo aad u fara badan buu siiyay isagoo ku dhiiri gelinaya in waxa wax ka badan la soo qabto. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay garyaqaan Cabdisalaan oo ah garyaqaanka xukumay 4taasi ruux ee lagu soo qabtay khamrigaasi iyo sidoo kale Cabdi Qowdhan Cabdi gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex. khamrigaasi oo ciidanka booliisku soo qabteen maxkamaddu iyo xafiiska xeeraalintuna ay abaalkoodii mariyeen xukunsanayaashii khamriga waday ee lagu qabtay iyadoo maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku xukuntay xukunsanayaasha min 4 sano oo xariiq ciqaabeeda iyo 5 milyan oo ganaax maaliyadeeda. waxa kale oo maxkamaddu ganaaxday gaarigii Land Cruiser-ka ee xukunsanayaashu khamriga ku sideen gaarigaas oo lagu ganaaxay qiimihiisa 5%. waxa kale oo maxkamaddu ganaax digniin afka ah siisay gurigii khamriga laga soo helay oo isaguna digniin la siiyay afka ah mulkiilaha guriga si uga waantoobo. waxaan halkan uga mahadnaqnaa ciidanka booliiska oo had iyo jeer ku daba taagan dambiilayaasha doonaya inay dalka magaransaaye dambiyada mukhaadaraadka ka sameeyaan. waxa galoo jira way aragnimada iyo shaqadan oo hayna waxayna bartay dambiyada dhacaya ay tuugadu ugu yartahay ilaa dilka dadka geystaa 90% inay yihiin dadka daroogada isticmaala marka uu keenayo sababaha iyo xumaanta iyo fawaaxishka khamrigu tirada inta laga inay soo geliso waxa weeyaan waa disaster waa faqar bay noqonaysaa. khamrigan la soo qabtay oo tir ahaan ka kooban 886 iyo bar litir oo khamri ah ayaa gabi ahaanba lagu burburiyay barxadda hore ee maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodijeex. Idruus Maxamed Axmed Ariel TV magaalada Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.